السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرابة وإن سلامي دمانتين ميل باجوتان maanta waxaan ka sheekeynaynaa qisadii dhex martay gabadhii soo dhooftay qurbaha timid iyo ninkii Afrika looga soo tegay. Waxaa dhacday gabar baa qurbaha timid waxay ka soo tagtay maaragtay nin ay caruur isku dhaleen dhowr caruur ah. Gabadhii markay qurbaha timid kadib sida caadada ahayd badanaa dadku Soomaalida iyo qaabka anaga dadku halkan ku yimaadaan waa in maaragtay bal isku soo dacwoodo dacwo iyo waxsaas la isu keeno sidaana familka ku midoobaan. Waxaa dhacday gabadhii markii ay qurbihii timid noloshii dee wax walba isku mid ma hadda Afrika iyo halkan iyo macna qurbaha kale markii la joogo noloshu aad u kala duwan tahay. waxyaabo badan ayaa jira maaragtay markii halkan la yimaado dadku ay ka helaan dadna aysan ka helin. Gabadhii markii halkan timid qurbaha waxay aragtay noloshii ay ku nooleed nolol ka duwan runtii aad ay ugu heshay. Gabadhii marka waxay samaysay waxay go'aan ku gaartay ninkii hore ay qabay inay maaragtay ay kala dhamaadaan, laakiin inta aysan kala dhamaanin ka hor inay ninkii ayada qabay inay soo wado ee halkii wadankii ay ku nooleed inay keento. Gabadhii reerkii u dacwootay ninkeedii iyo caruurteedii waa la keenay ninkii iyo caruurtii. Markii la yimid waxay samaysay gabadhii ninkii waxay u diyaarisay qol gooni ah. waxay tiri niyow dhageyso ma timid ha ilaahay ma ku nabad keenay ha. waxay tiri niyow qolkaas aad leedahay halkaas soo dhaafin. waa midda koowaad. midda labaad waxay tiri inta barnaamijyadaada halkan kaaga dhamaanayaan sharciyadaada iyo nidaamkaaga iyo maaragtay hawlahaaga si nidaam halkan aan ku wada joogno markii hawlaha ku dhamaadaana hore u sii socdo magaalada iska dhacay. ninkii arrintii way u socon weysay macquul ay la noqon weysay macquul ma aha sideen ku kala dhamaan karnaa aawo reerkii aawo waxaas. waxay tiri niyow waxaa hawsha inta ka baxday aniga waxaan rabaa nolol cusub hawlo cusub waxyaabo badan oo cusub. adigii waxay tiri hadda xumaan maanta adiga shakhsiyan aad ii geysatay oo aan hadda leeyahay bal alla ilaahay ninkaaga xumaantaas ku geystay ma jirto. kaliya qaladaadkii hore ee nolosheedaan rabaa inaan hadda dib u soco marka hadda waxaan kaa rajaynayaa inaad maaragtay iga ogolaan doonto inaan nolosheyda qaladaadkii hore iga dhacay inaan dib u soco. waxay tiri dee qaabka aniga adiga aan wada nooleyn iyo waxyaabahaas noloshu saas maaha noloshu way ka duwan tahay. marka waxay tiri niyow nin dhalinyaro ah tahay ana gabadh dhalinyaro ahanahay caruurteena way nala joogaan waa kuwaana oo hadda isbuuci mar waa u imaan kartaa ama laba ama saddex waqti alaal waqti aad rabtaa heli kartaa caruurtaada. marka waxay tiri niyow haddaad doontana caruurta adiga hayso oo adiga kula joogaan haddii kalena caruurta aniga aan hayo oo macnaha aniga hayla joogaan adiga soo booqo markii aad u baahato. laakiin waxay tiri aniga nolol kale aan rabaa inaan samaysto maaragtay hadduu ilaahay ku roon yahay xaalkii waa sidaas. ninkii intii laga dhaadhacsiiyey way ma dhici karto war way dhici kartaa wayba dhacday haddayna dhacaysaay niyow xaalka sidaa noo ima ahaado dee mana rabo. waxay tiri waxaan rabaa si walaaltinimo inaan isku xiriirino oo iska warqabno maadaama dad wax isku dhalay aan nahay inaan iska warqabno. marka arrintaan in ay igu qaadato aan kaa rajaynayo. ninkii arrintii way ku qanci waayey wuxuu sameeyey maaragtay adiga Soomaali qabiil iyo waxaas ku kala baxan. qabiilkii yaa la raadiyey gabadha qabiilkeedii isagii cidiisii wixii baa la isku tagtagay. dadku badanaa waxay yidhahdeen war niyow ma waalan tahay gabadhan waaba gabar wanaagsanba haddiiba ku keentay qurbihii aad la joogto ilmahaagii iyo adiga aad wada joogtaan dee gabadhan haddii ku tiri iska keefur maaragtay waxa macnaha problema macnaha meesha ma jiraan. maya aniga naagteeda maba isfuri karno ninkii aniga naagteeda meel aan ku kala harayno male. war horta soo qofkii inuu ku ogolaado maahan uu raalli kaa noqdo adiga dood dheer kadib
gabadhii waxaa la isku dayay in la qanciyo bal yiraahdo walaalahay bal ninkaan maadaama intaasoo carruura isku dhasheen bal wada jooga. waxay tiri niyow aniga maaragtay nolol ka duwan noloshaan qaabkan Soomaali style-ka iyo waxaas maaragtay nin Soomaali ah iyo waxaas ma rabay tiri. adduunku waxay tiri waa hormaray waa aragtahay tiri maaragtay dhalinyarada hadda caalamka qaabkay u egyihiin siday u nool yihiin jawigooda jiimamkan rugahan cadaankan macnaha marka waxay tiri dee macquul ma ay tiri in macnaha suuqa xoolaha straight suuqa xoolaha ma shaqeynaysa tiri macnaha nin toos maaragtay Soomaaliya ah is fahmi karnay tiri. marka noloshu bini'aadanka maaragtay waxaan sheekadan marka uga sheekeynaynaa gabadhan ayada ah oo hadda ninka aniga ahaan shakhsiyan markii arrintii aan maqlay waxaan ku yiri gabadhaani waxaan aaminsan inay gabar aad u fiican tahay maadaama ay macnaha reerkeedii ay maaragtay isku keensatay ninkeedii iyo ilmaheedii wadoo ninkii dee waddankan meeshaad untaa uga noolaan kartaa qasab maaha ilmahaaga inaa iyo naagtaada inaad la noolaato qasab maaha haddii aad kala tagtaan dadka nolosha hore usii soconaysaa. marka sheekadan waxay kamid tahay sheekooyinkii maaragtay qurbaha waxyaabaha la yaab kale. marka adigana waxaan kuu rajeynayaa haddii aad wax noo hayso inaad maaragtay noo soo gudbiso aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa waa mahadsantiid.